xadiiskan runtii waa mid qiiro badan kana turjumaya macno aad u weyn gudihiisana ay ku sugan tahay cibro qaadasho. Ummuna Caaisha ilaahay ka raali noqdee waxa ay tiri rasuulka ilaahay waxa uu ahaa mid habeenka intiisa badan salaad sulayl u taagan oo tukanaya. Kadibna waxaan ku iri rasuulka ilaahayow maxaad naftaada sidaa ugu gelaysaa oo ugu dhibaataynaysaa iyadoo dembigaaga hore iyo kii dambeba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhaafay. nabiga calayhi salaatu wasalaam kelmad runtii aad u qiimo badan oo xeel dheer ayuu ku jawaabay oo ah afalaa uxibbu an akuuna cabdan shakuura, miyaanan jeclaysanayn inaan noqdo addoon shukriya. mar haddii ilaahay dunuubteedii hore iyo kaygii dambeba dhaafay macnaheedu maaha inaan isdhigtee inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala u shukriyaa oo u cibaadaysta. bishaaro waxaa loogu bishaaraynayaa dhammaan bulshooyinta Soomaaliyeed ee daafaha caalamka joogta in markaska Al-Hidaaya Islamic Center uu diiwaan gelin doono arday cusub. markaskan ayaa waxa uu bixiyaa duruus ay ka mid tahay aasaaska diinta Islaamka sida higaada, Qur'aanka oo hab tajwiid loo barayo, caqiidada, barashada farteena Soomaaliga iyo dhaqanka, iyo in weliba salaada laga saxo iyo waxyaalaha caqiidada ku tacalluqa. Haddaba haddii aad u baahan tahay waxaad nagala soo xiriiri kartaa lambarkan aan kuu sheegayo +2529054445550. aad baa u mahadsantahay.